دانو waxay siday dad xawaali 2500 kor u dhaafaya tirada saxa ah waxaan idin soo gudbinaa diiwaangelintii baa hadda socota dadkaas oo isugu jira dumar iyo caruur dad waaweyn dad jilicsan waxaan aad ugu mahadcelinaynaa sida hay'adaha ku shaqaalahi ay biyaha ugu geeyeen doonida dusheeda sida daawada ambalaasyada aan maxay tahay wasaaradda caafimaadku ay u daldalaysay oo u laba dhigaysay wixii markaa caafimaadkoodu aanu fiicnayn ganacsatada reer Puntland iyo gudida gurmadka qaxootiga hay'adan la yiraahdo NGO la yiraahdo BSA oo Yemen waxaanu intaas ku daray wasiirka Puntland waxa aan maqlay wasiir reer Hargeysa ah oo yiri dadka Soomaaliyeed iyo dadka qaxootiga ma qaabili doono hadaan wax nalasin annagu runtii ku dawarsan mayno afar arrimood baanu u soo dhaweynaynaa muslimnimo dad islaam inay yihiin oo aanu islaamnimada wadaagno darisnimo iyo abaalay nagu leeyihiin iyo Soomaalinimo iyo bini'aadanimo humanitarian intaas oo qodob arrimood baanu u soo dhaweynaa awgeed